mahad leh ilaahay keligii mahad leh ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu roob degdeg ayna siiyo dhulkii waa dhintay wax midnimada waxay ogaataan Soomaaliya inay inaga ina sugiso haddaan inagu aanaynu wax noqon iyaga hagaajin iyaguna hagaagi maayaan runtii waxay aqliga mana gala tagteen hadduu aqligu qaybsamana isna dama kacayo aqligeena waa inuu midaynaa reewooyiga aha ee wanaagsana ee islaamnimada iyo Soomaalinimada ku dheehneed waa inuu dib u soo culinaa Soomaali waa isku mid meel ka toogtaba hasaate waxa weeye waxa ka noqon kara kala dawlado kale wanaagsan oo ay noqon karaan wax ku jira ma jiro qabiil waxba lagu ma noqdo wax wala qaran baa lagu noqdaa waddanba waddanku ka dawlad wanaagsan yahay ayuu ka hormaraa waxay maanta Soomaaliya dhulkii markaan ahayn 60kii dadku u tacliinta badnaa baan ahayn maanta haddaynu eegno waa la dhaafay waa arkay kalinkii shan halku marayo ilaahay khayrka weeye NFD waa aragteen Djibouti waa aragteen inaga caanag u hor qaadina u liidata taasna inama qabato ilaahay waxaan subxaanahu wa ta'aala ilaahay qalbigeena isku wanaajiyo inuu ilaahay midnimadeena adkeeyo markaas uu khayrku inoo iman doona marka isticlaano walaa isticlaana leena subxaanahu wa ta'aala waxaad tihiin dad mid qoraya isku tihiin markaan ku kulanay Addis Ababa ee ay sheekaysteen Maxamed Kaahin iyo wasiirku iyo qoradii khaatimo ka socotay waxaan anaga ma noobaydu baahneen inay idinku wixii dhamaysantaa family isku noqdeen family dadkeenu weeye dad soo yaqaano is dhalay bay u nahay abtirsimadu ma baabado laakiin danta inta isku dal israaca anu ninka Saad Yoonis halka joogo waxa iga xigay ninka reer Isaaq in awaaro wada degnaa xiga marka waxa weeye lafta ku dhubal ugu kabaa is dad bay u nahay aruuteena iyo mustaqbalka ka shaqeyno waliba anaga xil weyn ma nasaaran anaga caliyo akhre wala xisaabtamaya wariya talin jiray baa oranaya markii dadku baabeen wariya talin jiray markii dadku khayr ka heleen ilaahay ku khayr ka horseeda naga yeelo subhanahu wa ta'ala ilaahay khayr ka naga yeelo suldaan ma yeelano garaad ma yeelano haddaynu qaran yeelan qaran baan sameysana insha Allah ta'ala soo dhawow wasiir madaxweyne professor maxaan ka kugu daraa mujaahid salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Saad Yoonis halka joogo waxa iga xigay ninka reer Isaaq in awaaro wada degnaa xiga marka waxa weeye lafta ku dhubal ugu kabaa is dad bay u nahay aruuteena iyo mustaqbalka ka shaqeyno waliba anaga xil weyn ma nasaaran anaga caliyo akhre wala xisaabtamaya wariya talin jiray baa oranaya markii dadku baabeen wariya talin jiray markii dadku khayr ka heleen ilaahay ku khayr ka horseeda naga yeelo subhanahu wa ta'ala ilaahay khayr ka naga yeelo suldaan ma yeelano garaad ma yeelano haddaynu qaran yeelan qaran baan sameysana insha Allah ta'ala soo dhawow wasiir madaxweyne professor maxaan ka kugu daraa mujaahid salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh